maalintii sabtidii ay taariikhdu ku beegneeday 2 Jamaadul Awwal 1441 hijriga mujaahidiintu waxay weerar ka fuliyeen halka loo yaqaano kontorool afgooye ee magaalada Muqdisho. halkaas waxay mujaahidiintu weerar kula beegsadeen koleeyo cadow ah oo isugu jirta shisheeye Turki ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo iyaga ilaalo u ahaa. weerarkaas koleeyadii lala beegsaday waa uu haleelay khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac ahna wuxuu u geystay Turkidii duulaanka ku ahayd ummadeenna iyo maleeshiyaadkii riddada ee ilaalada u ahayd. dhanka kale weerarka ayaa khasaare naf iyo maalba isugu jira gaarsiiyey dad muslimiin ah oo la kulmay xilligii weerarka uu dhacay. waxaana aad iyo aad uga xunnahay khasaaraha ka soo gaaray ummadeenna muslimka ah ee Soomaaliyeed. waana ka tacsiyeynaynaa dhammaan dadkii muslimiinta ahaa ee halkaas naftooda ku waayey ama ku dhaawacmay ama hanti ay uga burburtay. intii naftooda ku weysay waxaan leenahay shahaado Allah subxaanahu wa tacaala ha uga dhigo oo jannadiisa Allah subxaanahu wa tacaala ha ku abaalmariyo. eheladooda sabar Allah ku irsaaqo. intii ku dhaawacantay Allah subxaanahu wa tacaala ha u boogadhayo. intii hantidooda ku weysana bedel khayr qaba Allah subxaanahu wa tacaala ha siiyo. waxaa hubaala in mujaahidiintu ay yihiin cidda ugu badan oo uu gubayo dhibka gaaray ummadeenna muslimka ah. taasina waa tan nagu bixisay inaan u tacsiyeyno dadkeenna muslimiinta ah kurbadana aan la qaybsanno. halka gaalada iyo murtadiintu iyo warbaahinta cadowga ku awrkacsanayaan kuna dangaarayaan iyagoo ujeeddadu ay ka leeyihiin ay tahay inay ku been abuurtaan hafraanna mujaahidiinta iyo inay suurad xumeeyaan cibaadada jihaadka. maxaa yeelay hadday arrintu tahay inay ka naxayaan dhibta ummadeenna muslimka ah haysta waxay ka hadli lahaayeen gumaadka ay Maraykanka, Itoobiya iyo Kenya u geysanayaan ummadeenna muslimka ah. waa ummaddan u dhibanaynay nafteennana aan u huraynay. waxayna la mid yihiin wiilasheenna mujaahidiinta ah ee naftooda u bixiyey difaaca diinta dalka iyo dadka. waxaana dhammaantood Allah subxaanahu wa tacaala uga rajaynaynaa inay shuhaado yihiin. waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala ha ka aqbalo dhammaantood shahaadadooda. qadar ilaahay oo aanay jirin cid celin karta ayay ku dhacday in gaadiidka dadkaas muslimiinta ah ay saaraayeen uu cadowgu ku xayiray kontoroolka si uu gaashaan kaga dhigto, taasoo keentay inay ku beeganto xilligii ay mujaahidiintu beegsanayeen kolayada cadowga Turkiga ah iyo murtadiintii la socotay. sidaas ayay dhibaatadaasi ku soo gaartay dadka muslimiinta ah. waxaa muhiim ah in ummadda Soomaaliyeed ee muslimka ah ay ogaato mar walbana mujaahidiintu ku celcelinayaan in jihaadka aan ku jirno uu leeyahay duruufo iyo ahwaal u gaar ah. xaalado adag ayaana cadowga kula dagaalamaynaa. waxaan aaminsanahay in dhiigga qofka muslimka ah inuu xaaraan yahay, Allahna uu inaga xaaraantimeeyey. mana ahan waxaan cid bini aadana daraaddeed aan uga leexanayno ee waa sharciga rabbigeena subxaanahu wa tacaala qaadashadiisa. tusaale ahaan hadday mujaahidiintu beegsanayaan dadka muslimiinta ah waxay ku beegsan lahaayeen meelo ka baxsan kontorool afgooye kana dad badan. dhanka kalena diinta xifdinteedu waxay ka horraysaa nafta badbaadinteeda.